shahaadooyin badan iyo shaqooyin yar. sanad kasta kumanaan arday ah ayaa qalin jebiya iyagoo wata rajo, qorshe iyo kalsooni ay ku aamineen in shahaadadu u furayso albaab cusub. qoysaskoodu way u dabaaldegayaan, bulshadana waxay ugu yeertaa aqoon-yahan. laakiin marka farxaddii qalin jebinta ay xasisho, xaqiiqada si tartiib ah ayay u soo baxdaa. suuqa shaqaduna ma aha mid la jaanqaadi kara tirada sii kordhaysa ee qalinjebiyayaasha. fursaduhu waa kooban yihiin, tartankuna waa mid aad u adag. marka shahaadooyin badan la soo saaro iyadoo aan loo diyaarin baahida dhabta ah ee suuqa, qiimahoodu si dabiici ah ayuu hoos ugu dhacaa. tani ma aha khalad shaqsi ee waa isku dheelitir la'aanta nidaamsan ee jirta. su-aasha muhiimka ah waa, ma barannay waxa suuqu u baahan yahay, mise waxaan barannay waxa nidaamku bixin karo? halkaas ayay ka bilaabataa doodda dhabta ah.